Dio bolimo halkay bargal ku taal balara waxaa maanta si diiran oo farxad iyo reyn ku jirto lagu soo dhaweeyay magaalada Baargaal ee gobolka Gaardafo wafdi uu hogaaminayay wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Puntland mudane Faarax Maxamuud Cawaash oo ka mid yahay xildhibaan Cabdullaahi Yuusuf Muuse oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Puntland ee matala gobolka wasiirka iyo wafdigiisa oo soo gaaray magaalada Baargaal saacadu markay ahayd 2:30 galinkii dambe ayaa waxaa halkaasi si weyn ugu soo dhaweeyay isduwaha wasaaradda arrimaha gudaha ee gobolka Gaardafo mudane Cabdulqaadir Maxamed Jaamac iyo sidoo kale mas'uuliyiin ugu sareysa degmada Baargaal oo hormuud ka ahaa gudoomiyaha degmada Baargaal mudane Abuukar Axmed Yuusuf odayaasha dhaqanka waxgaradka ururada bulshada iyo dadweynaha aad u fara badan oo uga hortagay wasiirka iyo wafdigiisa meel ka baxsan magaalada ayagoo ruuxaya calanka Puntland sawirada wasiirka iyo xildhibaanka caleemo qoyan iyo boorar ay ku qoran yihiin erayo lagu soo dhaweynayo wafdiga wasiirka isduwaha wasaaradda arrimaha gudaha ee gobolka Gaardafo mudane Cabdulqaadir Maxamed Jaamac oo horkacay mas'uuliyiintii soo dhaweysay wafdiga ayaa marka hore sheegay inay si kal iyo laab ah u soo dhaweynayaan wasiirka iyo xildhibaanka guud ahaan gobolka Gaardafo gaar ahaan magaalada Baargaal oo maanta soo gaareen waxaana ka mid ah hadaladiisii wasiirka kalluumeysiga waa dhulkoodii hooyo waa degaankoodii waa magaaladoodii waa gobolkoodii degmadii ugu horeysay mudanayaal waxaan idin leenahay ku soo dhawaada Baargaal intaasi ka bacdi waxaa ka hadlay madashii soo dhaweynta xildhibaan Cabdullaahi Yuusuf Muuse oo sheegay inay gudanayaan waajib ka mid ah waajibaadkooda asagoo sheegay inay Baargaal ka mid tahay magaalooyinka sida gaarka ah ay matalaan waxaana ka mid ah hadaladiisii inaan u nimid waajib ka mid ah waajibaadkeena inaan gudanayno runtii magaalada Baargaal waxay ka mid tahay magaalooyinka aan sida gaarka u matalno aan ugu matalno dowladda Puntland waxaana waajib nagu ah in aan dadkeeda u tagno aan soo dhageysano tabashooyinkooda waxay u baahan yihiin aan la soo sheegaysano kadibna wixii aan ka aragno ama ka dhex aragno aragtiyadooda aan la wadaagno dowladda aan geeno baarlamaanka aan xukuumadda u geeno ugu dambeyntii waxaa hadalka qabsaday wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Puntland mudane Faarax Cawaash oo yiri waxaad muujisay inay Baargaal tahay balad xadaarad iyo ilbaxnimo taal Baargaal inay tahay balad beero iyo beeyo caan ku ah Baargaal inay tahay hoygii boqorka iyo beeldaajuhu deganaayeen Baargaal inay tahay meel bulshada barbaarisa oo korisa oo ay degan yihiin bulsho isku duuban reer Baargaal sida ballaaran oo aad noogu soo baxdeen aad baan u bogaadinaynaa aad baan idinka mahadcelinaynaa waxaad caddayseen oo muujiseen Baargaal inay tahay balad nabadeed Baargaal inay tahay balad xadaarad iyo ilbaxnimo taal Baargaal inay tahay balad beero iyo beeyaba caan ku ah badweyntii Hindiyana dhaca Baargaal inay tahay hoygii boqorka iyo beeldaajuuba deganaayeen Baargaal inay tahay meel bulshada barbaarisa korisa bulsho isku duubanna ay joogto aad baan idin salaamayaa qashaad idinku nimi baryaan wada joogi doonaa insha Allah waana kala bogan doonaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin soo dhaweynta qiimaha badan oo aad samayseen waan idinla joognaa insha Allah si gaargaara iyo si guud waa wada kulmi doonaa insha Allah waa mahadsantihiin wafdigan ayaa hordhac u ah wafdi kale oo ballaaran oo ka socda wasaaradda arrimaha gudaha Puntland oo qorsheynaya dhismaha golaha deegaanka degmada Baargaal
dhinaca kale wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Puntland mudane Faarax Awaash ayaa inta uu ku sugan yahay degmada Baargaal wuxuu dhisi doonaa oo doorasho u qaban doona hadduu eebeedmo iskaashatada degmada Baargaal uu dhisi doono maamul iyo hoggaan cusub Ediyo bolimo alkay bargal ku taal balara